وهي وقلها نبحيو. السلام عليكم. wiilasha ha ii fariistaan wax badan wiilal talent leh waa soo daadiyay maanta barnaamijkan wuxuu kala xiran yahay gabdho full talent ah barnaamijkan oo qurxiyo oo like inoo saar subscribe taa haddaan u qalmana igu sharaf ku soo dhawaada barnaamijka welcome to another crime scene baatahay berri maalinta ah waa the day of saraakiisha ingiriiskaas inuu saxaya in kale oo kullee laas ugu qad saraakiisha ayaa berri leh shalay markaan iri lambarkii baan soo dhigayaa wadan kale in cazumaya dhalinyaradii commentiga igu canaanteen waxay dheen wasiir 100,000 lambar baan save kareysanay oo noo diiwaan gashan oo wasiirka wixii information aan kugu soo gudbinaa 200 lambar kale noo keentay 300,000 markaa gaartay insha Allah lambar kale keenay 400 lambar kale keenay 500 lambar kale keenay wasiir WhatsApp ka mucnaa wada wasiirka muu noqonaa war wasiir aan ugu ciyaarnay dheen wasaaradda lambar aan noo diiwaan gashan aan haysanaa xog walba ku soo gudbinaa lambarkeena ha naga rarin qaarna waxay leeyihiin wasiir anaga fiidiyoda waa soo dirnay lambar kale ka sheekeynaysa maxaa waaye kii hore noo saf garaysna muuqaaladii waa soo dirnay dhaheen marka lambarkeena hore aan joogeynaa halkaas idin saaran waa lambarkii idin saf garaysnaa bari muuqaalkaas hal qof oo caana kama soo muuqanayo saraakiisha iyo dhalinyarada barnaamijkaas leh laakiin qodobada ka soo hadlaysaan kow magacaaga inaad ilaawin labo meesha aad deegaanka ama magaalada markaas aad joogto inaad iloobin sababtoo ah dhalinyaradaas magaaladii u badato ee dhalinyarada ee muuqaalada hambaliyada ka soo diraan safarka 200,000 ilaa 300,000 safarkaas inta uu socdo waa gudoomiyaasha ama hogaanka saraakiisha xitaa barnaamijyada soo gudbiyaan arrimaha codsadaan si gooni ah u tixgelinaya iyaga il gooni ah bilahanayaan xogaha mas'uuliyad gooni ah ayaga la siinaya sababtoo ah waa hogaamiyaashii marka si deegaankaaga aad codkiisa ugu badisido codkaaga uu saacido magacaaga iyo deegaanka ku nooshahay qodobka saddexaad wuxuu yahay muuqaalada inaan 10 daqiiqo ku diino iyo inaan 15 daqiiqo gaarsiino dhalinyaro fara badan baa iga cusubta dhalinyaro fara badan waxay dhaan wasiir daatada waqtiga timeka iyo barnaamijka dhadhankiisa markaan u fiirino baalka 10 daqiiqo uusan ka badan marka adiga ka taageersan tahay ma 10 daqiiqo taageersan tahay ma 15 daqiiqo iyo qofkii asxaabta ciyaalka xaafadda ee meesha kula degan ama qof kugu qaali ah oo meesha aad ka salaamayso afarta qodobiyaan la ilaawin kow magacaaga labo deegaanka aad ku nooshahay saddex barnaamijka in 10 daqiiqo ama laga dhigo afar hal qof oo hooyada noqoto walaalka aabaha saaxiibka hal qof oo kugu qaali aniga waa salaami doonaa salaanta mir kale lama oo salaami doonaa marka barnaamijka bari waa the day of saraakiisha lambarka waa iga haysaan hadeer muuqaalada waa soo fasixi kartaan diyaar idinahay waayahay farban ugu la soo qabto waxa la yiri wasiir adigu ragga kaliya taalatiga soo bandhigtaa muuqaalka xataa ugu dambeeyay wiilal heesta bedelay baa soo qaaday gabdhihiina xoga dumarka ogtaa dumarka madaxa ay saarayeen social media dumarana ugu hayo commentiska iyo like nin barnaamijkan wiil waad ka fiirsanaa waa iska tagaa like gabar like comment wasiir marka gabdhaha madaxa ay saarayeen maanta gabdhaha nooc casuman aan sharfeynaa oo karaameynaa hal qalad baa jira wiilasha TikTok iga mishin gareeya waa kooxdaas aad baa u taageersanaa dadka update kiga dhiga waay wasaaradda dadka update gareeya waa dadkaas waay dhalinyaradaas waxa sameeysan gabar talent marka aragtaan wiilkii wuxuu iska sameynaa abaayo waa shidan tahay wallahi lambarkaaga meeli kara waa iska bulo meesha aan imagine gareyn lahaa xariiftan gabdhaha markay arkaan wiil talent leh waa imagine gareeyaan wasiir wiilkan bal ka soo hadal wiilkan bal qiimeey bay ugu dhahaan wiilashii waxa la rabay in gabdhaha talent leh ay soo gudbiyaan Soomaa xariiftan ku maqan yahay abaayo xaafadeed deganta marka gabdhaha talent leh laga mishin gareeyo hadeer laba gabdhood oo full talent ah idin hayaa labadaas gabdhood mid walba waxbay gooni ku tahay hal waxna way ka sameeyeen waxa ay ka sameeyeen iyo wax walba mid walba gooni u tahay ba idin la wadaagayaa bal aan isla fiirino muuqaal koobaad ku dhool caday qofka aad jeceshahay hortiisa wuxuu dareemayaa jacaylkaada cadowgaada hortiisa wuxuu dareemayaa itaaldaradiisa qofkii ka tagay hortiisa wuxuu dareemayaa shalayto daqiiqada ugu qurxan waa markii uu dhab noqdo shay aad u soo sabartay waa maqlaa dhiirigeliye qof dhiirigeliye dhalinyarada dumarka waxay leeyihiin dhiirigeliye 100% dhaama dhalinyarada ragga ay wax dhiirigeliya gabadhan hadallada ay ku hadlayso xataa ma hadalla iyada ay soo sameysatay oo aragti ay ku cabirtay ee waa hadalla suugaan wata hadalla suugaamaysan oo isku aadan oo ereyadina gooniba uga soo shaqeysaa fikradda ay gudbinaysan gooniba uga soo shaqeysaa waa wax goonigu ah gabadha labaad marka aan isla fiirino haddii dhigta ruux la jero dalolku wuu joogayaa
jaleelada geedu yal midhaha laga jalamsada jiriyo hadda joogo hubaad miguhu ways jiidhayan haddana laba jacayl dhexyal sinaba uma kala jarman. wow wow maxaa gabadha dadka hore may ka soo hartay kiisi xaaji iyo saynab ciga iyo dadka hore may codka xataa waxaa moodaa markaas ay dhahayso wadaas in xataa wala fahore waa legend waa haybad gooni abay gabadhan leedahay haybad gooni abay leedahay jaana jaarta gabadhan la sameynaya suuga jaana jiga la sameynaya mataqaana aadaas intii leedahay anigana neefta isku celinaya jaana jiga wala yaaba waxa intu saaya macnaha sidii magool iyo codkaas in la jiidaa in wax sahlan ahayn waa isla bilaabeynaa 1 2 3 macnaha qoftan waa another level waay haddaa naqaska isku celisid muuqaalka hadda soo cesho intii ay leedahay isku celina naqaska daadhaad neefta ku qabanayso bil xaqiiqa muuqaalka markaan u gudubno challenge-ga sirka ah marka aan ka gudubno oo aan idinku tilmaamayay in tuubo fiican ay leedahay jiid dheerna ay leedahay bal muuqaalka labaad professoradii aan ku laabano tusaale kastoo muhiim ah oo aad hadalkaada ku soo qaadato aragtidaada ku qeexdo dareenkaaga ku gudbiso rabitaankaaga ku cabirto ama aad ficilkaaga ku muujiso waxaa ku fahmaya oo qura qof soo maray xaaladaada ama mid saa'id kuu jecel oo aad nafsadiisa ku weyn tahay laacib soo jabay maqli jirtay been ma ah wallahi dadka soo jabay ee soo waay arkay marka meel isugu soo gashaan ama nolol waqti ah mataqaana aad meel ku wada noolaataan xaalado fara badan oo qalbiga ka dhex guuxayo oo ay dadka kula fahmi kareen bay kula fahmayaan professorada meeshan beerta nabada miya kulli waxa way meel cashir ku bixisaa xiisadana maqrib qalbihii badana soo gashaa qofta saraakiisha haloo tago haloo sheego waxa waaye muuqaalaha la soo duubo professorada waa wasaaradda waa qoftan professorada wasaaradda qoftan ka tirsan tahay maanta laga bilaabo waayahay waxaan dib ugu laabanaynaa gabadhii kale qodobka ay ka sinaayeen ilaa hadda idin ma sheegin labada qodob ee gooniga u ah baa idin sheegay qodobkii ka sinaayeen waa idin soo wada wixii waqlahanu baxayo cidlaan habayaye cidlaan habayayo markii ku waayay waashe hadma inoo isweeshan doonaa dadka ay gabadhan ka mid tahay iyo dhalinyaro fara badan oo ogahay laakiin hadday fanka u soo hana qaadaan fanka Soomaaliyeed waa lagu kala adkaanaya waa lagu kala awood badanaya waa lagu kala yaacaya waayahay gabadhan codkeeda waa smart way waa full ana waxa waa ilaahay tooba waasi professoradin qofka raba inuu noloshaada ka baxo waa midka albaabka oo ku xiran darbiga ka booda midka raba inuu noloshaada soo galana waa kan albaabka oo ku xiran saqafka kaaga soo dhexbaxa ragga waxa u liita mid fadhiisanaya si uu uga sheekeeyo sharafta gabar uu maalmaha kamid ah ugu yeeri jiray gacaliso professorada maskaxda ilaahay oo barakeeyo ragga Soomaaliyeed talentigiina soo bandhigi karay maanta muuqaal kale like ta loo saaro maxaa waxa way ilaahay aqliga ku manaysto ma sha Allah xigmad tusaaleyn iyo waliba ma taqaanaa hadalkeedo clear ah oo boonti walba dul istaagayso qodobaysan ficilaysan waa professorada keep going oo wadana madaxa noo saaran tahay hadan saraakiishana waxaan leeyahay professorada sharaf iyo karaama leedahay abay horumar wanaagsan qaab wanaagsan wax ku wada asturnaanta nasaas ugu daal fanaanadan waxaan leeyahay adiga waxa waaye levelkaagu waa Saynab ciga iyo waxa waaye Sahra jaamaciga oo ku level tahay dadka hadda jooga ku level ma tiid laakiin fankan dambigiisa waxba soo galina sidaas music la'aantaas dadku ugu jecel yihiin ku hees muuqaalkii intaas aan ku soo gabagabeynayaa
waxay noo balna biri iyo muuqaalka saraakiisha qodobada laga soo hadlayay waa idin sheegay magaca deegaanka muuqaalka 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo kii la gaarsiinayo iyo waliba qof qaali ah inaa meeshan ka salaantid barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkuna ugu qurux badnaado like taynoo saar subscribe taa haddaan u qalmana igu sharaf inta aan kulmi doono barnaamij kalmida fanaanada inoo soo gabagabeynaysa waa kaga tagayaa iyadaan kaga baxaya jaw jaw marka hore marwaadkiyo masaawaadka faraaxiyo محبة الرياقلي ومن لقو يقانا عشقيكم ملكتنا مراتب مواي